xagga qaza aynu eegno halkaasi oo lagu soo warramayo dagaalka Israa'iil ay ka wadaa in maanta uu galay maalintii 693 tan iyo saaka waa berigii 40 qof oo Falastiiniin ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay duqimaha iyo weerarada socda telefishinka laga leeyahay Israa'iil ee kana 12 ayaa sheegaya in militariga Israa'iil ay heleen meydka mid ka mid ah maxaabiista Israa'iiliinta ee lagu haystay marayka Gaza Ilan Weiss ayaa la sheegay in meydkiisa laga helay marayka Gaza laanta sirdoonka Mossad iyo ciidamada Israa'iil raali ahaada laanta sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet iyo ciidanka Israa'iil ayaa la sheegaya howlgalkaasi inay iska kaashadeen iyadoo dagaalku uu socdo xaaladuna ay ku sii adkaanayso militariga Israa'iil wargeyska Haaretz ee ka soo baxay Israa'iil ayaa waxa uu ka soo xigtay sarkaal ka tirsan ciidanka Israa'iil oo sheegaya waxaan ognahay wax sharci darro ah waxaan arkay amarada howlgalka gaadiidka Gideon ee Gaza waxaana go'aansaday in aan joojiyo adeegga ciidanka sarkaalkan ayaa wax intaasi ku daray waxaan go'aansaday gabi ahaanba in aan ka qayb galin dagaalkan anigoo aan markaasi hoos tagayn koox xag jir ah oo maalin kastaba dhib ku ah bulshada isagoo hadalka sii wata wuxuu yiri ma suurtoobayso in la sii wado bixinta qiimaha nolosha maxaabiista macnaha in nolosha maxaabiista lagu qamaarayo iyo askarta iyo waliba rayidka sababo siyaasadeed awgood isla telefishinka kana 12 war u baahiyay goordhaweyto waxa la sheegaya banaanbaxayo iminka inay ka socdaan kadinka hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ee magaalada Tel Aviv banaanbaxayaashu waxay dalbanayaan dagaalka degdeg in lagu joojiyo maxaabiistana la soo daayo gudaha Israa'iil inta ka bixin ra'yi ururin lagu daabacay wargeyska Maarif ee ka soo baxay Israa'iil ayaa maanta waxa ay muujinaysaa in 49% Israa'iiliyiintu ay aaminsan yihiin in xukuumadda Benjamin Netanyahu ay ka madax adeegayso rabitaanka shacabka iyo masiirka maxaabiista lagu haysta Gaza sidoo kale 45% dadka ra'yiga laga ururiyay ayaa waxay qabaan in mudaharaadyadu waxyeello u leeyihiin dadaalada lagu soo deynayo maxaabiista 23% waxay qabaan inay gacan ka geysanayaan 23% waxay qabaan inay saameyn aysan lahayn halka 9% aysan hubin haddii doorasho la qabto maanta xisbiga Likud ee Netanyahu wuxuu heli karaa oo kaliya 23 kursi halka Naftali Bennett oo markaas uu heli karo 22 kursi Israel Baytana oo hogaamiya Israel Baytana xisbiga lagu magacaabo ee uu hogaamiyo Avigdor Lieberman ayaa la sheegaya inuu heli karo 11 kursi xisbiga dimuqraadiga Yair Golan ayaa sana wuxuu heli karaa 9 kursi xisbiga uu hogaamiyo Gadi Eisenkot 9 kursi ayuu heli karaa xisbiga Yair Lapid oo hogaamiya ee lagu magacaabo Yesh Atid wuxuu heli karaa 8 kursi liiska carabta ayaa iyaguna waxa la filan karaa inay heli karaan in ilaa 6 kursi ay soo gali karaan isbahaysiga Ayman Odeh 5 kursi ay heli karaan halka Benny Gantesna aanu heli karin wax kursiya gabi ahaanba inkastoo uu kamid yahay dadkii la aaminsanaa in markaa uu noqon karo ra'iisul wasaare waxaana tan ka macno tahay inuu soo jiri karin xisbi Israa'iiliya oo heli kara kuraasta loo baahan yahay ee baarlamaanka oo ah ugu yaraan 61 kursi in markaa dawladda ugu dhisi karo tan macnaheedu waxa weeye khilaaf balaaran oo jira iyo in markaa haddii doorasho la qabto loo baahan yahay in la isku beero maanta barnaamijka xulashada wararka ee saakay baxay waxaan idinkugu soo gudbinay dawladda waddanka Britain oo sheegtay in Israa'iil ay ka joojisay ka qaybgalka bandhig hubka ah oo lagu qabanayo magaalada London oo shirkaduhu ay ku soo bandhigaan hubkooda haddaba goordhaweyto waxa isna hadlay afayeen u hadlay dawladda waddanka Britain wuxuu sheegayaa go'aanka xukuumadda Israa'iil ee ah inay kordhiso howlgallada militari ee Gaza in ay u arkaan qaran wuxuu intaasi raaciyay xal dhanka diblomaasiyadda ayaa loo heli karaa oo kaliya in dagaalkan lagu soo afjaro ugu dambeyntii wuxuu sheegay inaysan casuumin wax wafdi ka socda xukuumadda Israa'iil oo ka qayb galaya bandhigga militari ka dhici doona magaalada London isla arrimaha diblomaasiyadda intaana ka bixin wasiirka horumarinta caalamiga ah ee dalka Norway Asmund Okrust ayaa sheegay in xaaladda marayka Gaza ay sii xumaanayso maalinta ka dambaysa isagoo ku tilmaamay wax halkaas ka socda ku xadgudub qawaaniinta caalamiga ah waraysi uu siiyay telefishinka Al Jazeera qaybta afka carabiga ayuu ku sheegay in Gaza muddo dheer isu bedeshay naar dhulka ku taal isagoo xusay in Norway ay sameynayso dadaal kasta oo lagu taageerayo shacabka Falastiin
wuxuu carabka ku adkeeyey in dalkiisa uusan dayici doonin falastiiniyiinta Gaza iyo daanta galbeed ee la haysto isagoo sheegay in cuntada biyaha iyo daawooyinka loogu adeegsado Gaza sidii hub taas oo qawaaniinta caalamiga ka hor imaanaysa wasiirkan wuxuu ku baaqay xabajoojin degdeg ah isagoo sheegay in Oslo diyaar u tahay inay hormuud ka noqoto dadaalada lagu gaarayo xalka laba dowladood waxaana uu ka shaqeeyay in Norway ay sii wado cadaadiska la saarayo Israa'iil ee ah in la furo gargaarka bini'aadantinimada ee Gaza wuxuu tilmaamay in halkaasi ay tahay meesha ugu khatarta badan dunida ee saxafiyiinta isagoo ku baaqaya in kuwa ka dambeeya beegsiga saxafiyiinta lala xisaabtamo hagaag haatan waxaynu soo gaarnay xubintii faraqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khibrada dhanka militariga arrimaha istiraatiijiyadda ciidanka diblomaasiyadda sirdoonka iyo siyaasadda sidoo kale xubintan waxaynu aalaaba ku gorfaynaa macluumaadka warbaahintu ay baahiso ama ay qorto maanta waxaan idin haynaa warbixin uu qoray wargeyska iyo dicooda taxriirada ka soo baxa Israa'iil warbixintan wargeysku waxa uu ka soo xiganayaa saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka Israa'iil oo afka la qabsaday waxa ka socda xaafadda Al-Zaytuun halkaasi oo militariga Israa'iil ay ka qayliyeen dagaalka faraha looga gubtay gaar ahaan xeeladaha xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu ay wadaan wargeysku ayaa waxa uu sheegay in faahfaahin laga helayo dagaalada iyo howlgallada iyo iska horimaadyada ka socda xaafadda Al-Zaytuun ee koonfurta bari ee magaalada Gaza halkaas oo ay ku hardamayaan xogaga iska caabinta iyo ciidamada Israa'iil wargeysku wuxuu shaaciyay in dagaalyahano ka tirsan guutooyinka Ciisaddiin al-Qasaam garabka hubaysan ee ururka Xamaas ay dhowr maalmood ka hor ku beegsadeen halkaasi ku-xigeenka taliyaha cutub ka tirsan guutada gaashaaman ee xaafadda Al-Zaytuun halkaasna ay ku dhaawaceen sarkaalkaas waxa intaasi uu ku daray in dhowr maalmood ka hor ay sidoo kale cutubyada al-Qasaam weerar ku qaadeen ciidan Israa'iiliya oo ka tirsan guutada gaashaaman ee ka dagaalamaysa gudaha xaafadda Al-Zaytuun inkastoo aan la shaacin qasaaraha soo gaaray ciidankaas iyadoo qiyaasaha Israa'iilna ay muujinayaan in howlgalka militari ee xaafadaasi waa si hadalka loo dhigay ay ku soo idlaan karaan 2 toddobaad gudahood si kastaba ha ahaatee wargeysku waxa uu ka soo xigtay ila ciidan oo sheegaya in dagaalyahanada Xamaas ee xaafadda Zaytuun ay si joogto ah u weerarayaan saldhigyada kumeel gaarka ah ee ciidamada Israa'iil sidoo kale waxa uu ka soo xigtay wargeysku ila ciidan oo xaqiijiyay in ciidamada Israa'iil ka yaaban yihiin xirfadda dagaalyahanada Xamaas ee ku saabsan dhigida qaraxyada taas oo qayb weyn ka qaadatay guusha howlgalladooda joogtada ah ee ka dhanka ciidanka duulaanka ee gudaha xaafadaha Gaza ila ciidan oo soo xigtay wargeysku waxay sheegeen in askarta Israa'iil ay heleen god ku hoos yaal goob ay ku sugnaayeen ciidamada iyagoo carabka ku adkeeyay in dagaalyahanada Xamaas ay ku guuleysteen in ay dib u soo celiyaan awoodooda bilihii u dambeeyay taas oo muujinaysa awoodda dhaqaaqa ee dibodhiska iyo soo celinta qaybo ka mid ah awoodooda militari inkastoo duqeymo xagga cirka oo joogta ay ku socdaan iyadoo ay socdaan iska horimaadyada iyo howlgallada iska caabinta ee xaafadda Al-Zaytuun wargeyska iyo dacooda taxriirnood waxa uu ka soo xigtay ila ciidan in guutada gaashaaman ay qiyaasayso in howlgalka xaafadda Al-Zaytuun lagu soo afjari karo waa sida la aaminsan yahay 2 toddobaad gudahood inkastoo Israa'iil ay gudaha u gashay qaybo ballaaran oo Gaza haddana ilaa iyo maanta kuma aysan guuleysan in ay joojiso howlgallada iska caabinta ee ka dhankaha ciidamadooda iyo saldhigyada militariga ee gudaha Mareykanka Gaza oo had iyo gooraale loo geysto weerar joogto ah iyadoo sidoo kalena weerarada gantaalada marmar ay ku dhacayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka Israa'iil taas oo noqotay sheekada ugu weyn